qaybta ugu dambaysa dabaasha qiimaha leh waxa runtii aan ku soo gabagabeynaya oo aan leeyahay in dawadayaal waxa aynu u baahannahay oo muhiim ah waxa weeye dad Soomaaliyeed waa isku dan marka waraysa isku dankana waxa ka dhigaya oo inaga dhigaya waxa weeye dalkina waa inaga dhaxeeya diinta waa inaga dhaxaysa afka waa inaga dhaxeeya qoysnimada waa inaga dhaxaysa qarannimada waa inaga dhaxaysa runtiina nin la yiraahdo David Malpass oo ah ninka madaxda waa World Bank qaybta leedahay World Bank Group oo madaxweynaha wuxuu yiri maruu ka hadlayay xaaladda maaragtay Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliya waxa ay joogi kartaa bal kelmadda u fiirso waxay joogi kartaa eegfiir wada iyagu sameeyaan waay moogta waxay joogi kartaa inay hoos u dhigaan buuri faqriga waa hadii ay la yimaadaan buuri marka istiraatiijiyad marka ay Soomaalidu waliba Soomaaliya ma oran Soomaalidu yiri moogta Soomaalida kelmadda soo isticmaal marka fiiri Soomaalida marka yaa waay marka farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyo Beyle iyo Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo gudoomiyaha baarlamaanka miya iyo Dani iyo Musabbixi iyo miya maya waa inaga dadka la hadlaya marka adiga dad isku qafisho aad meel adigu kaliya isku xidho aday ku taala laakiin istiraatiijiyadan aad ka faa'iideysan kartaa istiraatiijiyadan adoo ganacsada ka faa'iideysan kartaa adoo aan ganacsada ahayn bad hadda ganacsada noqon kartaa halabuur bad yeelan kartaa waxaad bilaabi kartaa adiga waxaad keeni kartaa fikir lagu caawiyo walbankaad la tagto atraado aniga tuulo heblaan ka yimid dadkaad soo tira koobtay intaas qof ku nool waxay u baahan yihiin waxaan sameeynayaa waxay cuntooyinka dhan dibadda uga yimaadaan beer baan ka sameeynayaa cilbiya baan ka sameeynayaa solar koronto baan gelinayaa internet baan gelinayaa qarashkiisa intaas soo noqday intaas shaqaale baa galaysa intaas ka soo bixi karta dadkan ka iibinaya ayagan ganacsigooda kor ugu qaadaya biyo nadiif ah soo saaraya beeraley baan ka dhigaya qorshahaas intaas ku kacaya intaasaan haysta ama waxba ma haysto hal igu taageero qorshahaas ama shirkad Soomaaliyeed xoogaa ka qaatay xoogaa kale World Bank ka qaatay saas oo kale adaa lagu baahiyay marka wadankan waa lagu baahiyay wadankanna adiga iskale moogtay adiga iskale wadankan mid kamid ah dadka aqoonyahanka aan wareystay marka tagtid xamar ama wadankeena aad aragtid inta badan waxaad aragtay in wadankeena laga soo wariyo xumaan laga soo wariyo ama wax xumaan laga soo wariyo tusaalahan marka tagta xeebta liida oo kale ilaa iyo badda gudaheeda dhulkaas marka saa u eegto waxaad moodaysaa inaad joogto meeshan la yiraahdo Miami ee gobolkan Florida xeebta ku taal quruxda nadiifta hoteelada ku dhagan iyo sida yar niman dhalinyaro bas kale hoteelkan oo kale hoteelka Elite la yiraahdo kale nin dhalinyaro bas kale maxay tahay sheegeen maxay tahay sheeg anigu cid u haysata iyo cid maartay sheegeen deyn u haysata qaan u haysata maarag waa nin dhalinyaro isaga shaqaystay anigu aaminsanahay that's what I believe because inaan eedayo qof waxa ka shaqeeyo tobanaan iyo boqolaal qof oo dhalinyaro waxaad moodaysaa hoteelkaas markaad gudihiisa gasho in aad joogto yani waan ku faanaysaa in dad Soomaaliyeed ay maalgashi noocaas sameeyeen waxaa jira shirkadaheena Soomaaliyeed inay meel walba daaro dhaadheer ka dhiseen oo hadday tahay kuwa isgaarsiinta iyo hadday tahay kuwa xawaaladaha iyo kuwa bangiyada guryo waaweyn ee dhisay hadda amal waad aragtay guryaha ay ka dhisayaan wadanka oo dhan bay maalgelin iyo guryo ka wadaan dahabshiil dabaqyada ugu dhaadheer ayuu xamar Hargeysa meel walba berbere hoteelada waxa laga dhisay wadaas waxaan meesan hanti Soomaaliyeed ahayn soo dadkan soo wadankan marka adiga ninka arintaas dhisay ama saa sameeyay waa nin adoo kala moogtay waxa laga yaabaa maalinta ninkaas uu dunida yimid inuu san xitaa haysan dhar loo geli baa suuragal dadka noocaas oo kale laakiin ayaga shaqaystay inuu baadiyo ku dhashay baa laga yaabaa macnaha ayaga shaqaystay oo xoogooda iyo aqligooda iyo kartidooda iyo garashadooda ku horumaray marka hadaad laakiinse u qaltaagto Yurub baan u tahriibaya ama u qaltaagto mid aan walaanahay $100 meel iga soo diraya ama aad u qaltaagto waxaasan sameynaya ama aad kaliya u tiraahdo okay hooyaday baan oo meel ka shaqaysa ama meel qaad ku iibsa ama meel caana ku iibsa ama dukaan yar meel ku haysata ama hilib meel ku gogoysa ayaan bariiska la cunaya iyo canjeelada galabkiina intaan soo baxan labisanaya ama qaaxyaha shaaha ayaan shaar cad iyo suracad soo gasho nin oo gaalo laba ka soo diri ayaan fadhiisanaya halkaas ku leersanaya fiidkiina waa caraabaya oo kadib waxa hooyo maxay yaala cunto noloshaas inagu ku nool lahayd dhalinyarada Soomaalida nahay وين runta isku sheegnaa qayb qaarkeena waxa loo adeegsaday qaab qabiilo ni siyaasi ah ayaa adeegsanaya oo asagu dan siyaasiyeed wata oo dan shakhsiyeed wata oo qicida uu waxsiinayaan hadhow wuxuu noqonayaa ciyaalkiisa inuu ayagu ciyaalkiisa hadhow siyaasiyiin ugu sii noqonayo siyaasi qabiil ugu sii noqonayo janjaro ugu sii fuulaya dhaqaalaha ugu boobaya wax adiga ku qabanaya ma jirto gabiga waxa noqonaysaa qof uu lagu shaqeysanayo marka waxa soo dhanay ka gudubno wadankeena waa dihinyaysan waan ku celceliyo wadankan waa dihinyay wadankan barwaaqa taala qof walba maxay meel ka qabso maanta wadankan waa wadan dihin mu qof walba wadankaaga iimaanso horta marka horeysa iimaanso bismiillah kadibna
meel ka qabso meel ka toos doon yar iibso kalluumayso meel kasta waxay tahay fursad baa taalo waa wada xeeb waa wada buur oo maxay tahay buuru leeyahay waa wada beri oo maxay tahay dhudhubooyin iyo wuxuu leeyahay waa wada xoolaad meel yar ku dhaqan kartaayo intaad xoogaa lo ayo ariya intaad urursato baad meel ku dhaqan kartaayo kadibna waad horumari kartaa caana bataan oo caws inaad u hesho fiican oo intaad siid u raadiso oo caana badan ay ku soo lisaan oo maalintii aad 30 litir oo caana intaad ka lista iibiso oo aad suuq geysaad ka heli kartaa farti la taabtaa wax baa ku jira laakiin hadaynu iimaansanay inaga wadankeena amaankiisina aynu ka shaqeeyno dawladaha jirana ee wadanka ka jira ama maamulada wadanka ka jira in ayagana waxay tahay sheegeen waqti la siiyo oo maartay wixii uu caanay qabanayaan la dhageysto waxay leeyihiin la dhageysto wixii uu caana laga qaato ya sida waa tacliinta islaamka ay weeyaan in la dhageysto hadalka kiisa wanaagsan kiisa hadalka in la dhageysto qowlka marka hore alladina yasma'una qawl fayatabicuna ahsana kadibna kiisa wanaagsan aad maartay shaqaadato marka waxa weeye yani taasi waxay noqonaysaa in aynu noqono bulsho dhisan dadkaas ayaa waxay noqonayaan dad wax garanay ilaahay kuwaas waa kuwa wax garanaya wixii wanaagsan adigu wixii wanaagsan qaado wixii cilmi qaado wixii internetka markaad isticmaalayso ha u isticmaalin maanta oo dhan inaad comments akhrido mid qabiil ka hadlaya mid lives kaga jira maanta oo dhan waa inaad ka raadsataa dad ehel cilmi ah dad wax kugu soo kordhinaya internet kugu buuxa dad baa jaamacada kaga baxay internetkaas oo shahaadooyin PhD iyo masters iyo maartay bachelor iyo PA iyo ka sameeyay iyo MA miiran ka wada qaatay baa ka sameeyay cilmigii teknolojiyada ku jira kii waxa ku jira oo caafimaadka kii waxa ku jira oo ay maartay psychiatric iyo markay noqoto cilmi nafsi kii waxa ku jira business administration kii waxa ku jira macni IT iyo waartay waxyaalahaas oo kale waxa ku jira kii politics iyo hadarti political science iyo hadarti cilmiga siyaasadda iyo hadarti kan maxay diinta ayaa ku jira adiga qof uu meeras ka fadhiyo uu ha noqonin dhalinyarada arintaas gaar u tahay dadka waaweyn odayaasha iyo dadka waaweyn wadankan waxbarashada bilaashka soo dhigtay anagu waxbarasho bilaash ma soo arag runtii da yartayadu waxaan wax ku soo baranay qaarka iyo kuwa qurbaha joogan waa lagu leeyahay lacagta kuwa dalka joogana ayagana waxay ku soo barteen kacakuf dadkiina bilaashka wax ku soo bartay ee jaamacadaha academic-ka ka soo wada noqday ee wadankiida wax ku soo barteen hadeertana markuu qof walba xil waayo qalin iyo bug intuu qaato Facebook furanayo halka wax ka soo shubayo ama intuu microphone soo fariisanayo bari baan la laayay reerkayga laayay ama uu oranayo hebel baa bari saamay anagu taas ma baahanin runtii aan idin sheegana dhalinyarada Soomaaliyeed ana afkooda ku hadli kara maanta waxaan ugu hadli karaa waayo qof walba xanaamsan dhalinyarada Soomaaliyeed danta anu aan leeyahay inuu leeyahay oo ah in waxaanu mudanay kuwa anaga dhabarkayga ku jiray kuwa hadeerto kurideennu inaysan mudan ayaanu aaminsanahay naga raali ahaada odayaal maxay tahay waa idoo golahay abayaasha ay tihiin si wanaagsan loo hogaamiya naga dhaafa markaasi aanu xisaabtanno maalintii Ilaahayna gaarsiiyo hadeerta kaba gaadhno intaasan ku joojinaya daawadaasha qiimaha leh runtiina idinka hadad barnaamijka soo qayb qaadato way ku furan tahay aad iyo aad baa soo qayb qaadan kartaa barnaamijka codkaaga soo diri kartaa waxaad soo diri kartaa runtii qodobka aad ka hadli rabtid arintan aad iyo aad u jecelahay waxa weeye arinta horumarka iyo cuntada dalka inay cunto inaynu maartay wax loo yaqaan self sufficient inaynu isku filaano oo aynu wadankeena cunto ku filan ugu yaraan boqolkiiba inuu waxaansanno oo aynu boqolkiiba in aynu maanta gaadhno oo aanu warbadarkeen iyo cuntadeena aynu inagu maanta isku filaan aynu yareeno cuntooyinkan wada sumaysan wada dhacday aan la garanaynin bariiskan caaga bahashan wada korta ku badan tahay waxaan loo soo waaridayo ee la oranayo Afrika loo wada waa la yaqaanaa baa la yiri cuntooyinka waana run hadaad Afrika tagto waad kala garanaysaa bariiska aad ka cunto America iyo bariiska Soomaaliya ka cunto inay kala duwan you can tell macnaha waad sheegi kartaa waa xal waa la yaqaanaa meel walba meesha ku socdaan waa la yaqaanaa dalalka dawladoodu ay jaban tahay ay maartay sheeg laga la doomar loo gambi karo maartay laga hosaari karo waa la yaqaanaa marka cuntada wadankeena in horumarsan war cuntada wadankeena waxa ku badan macdanta wadankeena waa macdan dhaaf cuntadiisu waa health waa cunto caafimaadku u buuxdaafiyay runtii saladka Soomaaliya markaad cunisid iyo mooska Soomaaliya markaad cunisid waa dareemaysaa dhadhankooda u dhaxeeya sidaad u dareemaysaa bariiska dhadhanka u dhaxeeya waayo bariiska de kuwan waa laga baqayaa oo bariiska waa loogu soo dadaalaya bariiska dibadda uga yimaado bariis tayale oo maartay baa loo keenayaa because the drug maartay waxay leeyihiin wax la yiraahdo maartay food and drug administration dawladdan bay leeyihiin oo
ayadu maamusha cuntada iyo dawooyinka maamushay leeyihiin laakiin inaga balteenaas inagu aynu samaysanay taas aynu xooga saarno taa aynu ka shaqeyno taa aynu xoojino wadankeena aynu jeclaano inaguna aynu isnabadgelino aynu jeclaano aynu marxaladan kaga baxno si wada jira aynu maalin kale kaftano maalin kale hal xisaabtamo maalin kale dhibaatada Soomaali ka dhacday iyo Soomaali dhexdeeda anigu runtii ma aaminsani hadeerto inaynu ku mashquulo waayo Soomaali dhibaatadeeda 40 sanadood ayay soo socotay marxalad bay soo marisay dhibaataduna hadii la yiraahdo qolo walba hal isla xisaabtamo xisaabtu way dheeraanaysaa qola aan cibkisriina maanta ma jirto ni Soomaaliya maanta cibkisriina ama maamul soo maray ama jabhad soo maray ama dawlad soo maray marka aynu saas ku qaadano Soomaaliyeed aynu isku aqbalno oo saas aan aaminsanahay inta marxaladan horta ka baxano waayo marxaladii baynu ku dhex jirnaa bal dhowto markaan marxaladan ka baxano qofka xisaab aynu la gaadhno wixii dadkii ka nool marka aynu raadino amaan Allah